maxaad ka taqaanaa Singapore oo ahayd jasiirad sabool ah wayna u ahayd kaneecada oo isku bedeshay mid ka mid ah dawladaha ugu dhaqaalaha badan adduunka. Muuqaalkan oo dhameystiran ayaan idinkula wadaagi doonaa boggeena xabiibaladan. Haddii ay tahay markii ay kugu horeysay aadna soo booqatay, waxaanu kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto, sidoo kale aad sii faafiso muuqaalkan. Mahadsanid. Lee Kuan Yew ayaa aasaasay Singapore maanta aan naqaano. Singapore waxay ahayd dawlad faqiir ah oo uu Ingiriisku gumaysto. Lee Kuan Yew waxa uu ka noqday ra'iisul wasaare sanadii 1959 wuxuu ku soo baxay doorasho dimuqraadi ah. Singapore waxay ka mid noqotay midowga Malaysia sanadii 1963 kadib markii ay xurnimadeedii ka qaadatay Ingiriiska, laakiin 2 sano kadib ayay Malaysia isaga tagtay Singapore inay midow la sii ahaato. Sidaas ayay ku noqotay Singapore dawlad madax bannaan. Lee Kuan Yew ayaa waxa uu la murugooday waxa uu ka sameyn doono dalkan yar ee saboolka ah, kaneecadana deegaanka u noqotay. Baaxadda dhulku ku fadhiyaan aan dhaafsiisaneen 720 kiiloomitir, dadkeedana aysan jirin wax mideeya sida luqadda qoomiyadda, mana ahayn dad taariikh wadaag ah. Intaasi waxaa sii dheer inaysan lahayn shidaal ama dahab ay adduunku u iibgeeyaan. Mararka qaar musiibooyinka ayaa keena wax lagu riyaaqo. Lee Kuan waa uu aqbalay caqabadaha wuxuuna u diyaar garoobay inuu wajaho. Waxaa arrinta kula socday khubaro ka tirsan golihiisa wasiirada. Waxay isla dejiyeen qorshe ay ku horumarinayaan dalkooda ayna ku soo jiidanayaan maalgashi dibadeed. Waxay ku tartansiiyeen shacabka inay wax bartaan waddo kasta oo ay u maraanba. Arrimaha siyaasadana shacabka si gabi ahaaneed ayaa looga joojiyey. Waxayna aamineen in xilligu yahay xilli shaqo oo aan wax shaqo ahayna aan lagu hormari karin. Singapore waxay awoodii gelisay warshadeynta dalka. Waxay ku dhaqaaqeen samaynta doomaha. Waxay farsameeyeen biraha macdanta iyo maadooyinka kiimikaalka si looga dhiraandhiriyo shidaalka. Waxay kaloo xoogga saareen farsamaynta qalabka korontada. Waddanka waxaa maalgashaday shirkadaha adduunka ugu waaweyn sida Shell iyo ISO. Sagaashameeyadii waxay noqotay dawladda saddexaad ee lagu sifeeyo saliidda cayriinka ah iyo dawladda saddexaad ee ka ganacsata shidaalka. Waxay noqotay dawladdii ugu horeysay ee soo saarta kiimikooyinka laga sameeyo haraadiga shidaalka. Dekedda Singapore waxay noqotay dekedda ugu mashquulka badan. Dadka reer Singapore waa dad wax bartay luqadda Ingiriiska ayayna ku wada hadlaan. Ingiriiska waxa uu ka noqday luqadda rasmiga ee dalkaasi. Markay dhaqaale ahaan u horumartay, waxay xal u raadisay deegaanada isku raranka. Dhulka waxaa lagu wareejiyey shirkado qaas loo leeyahay si ay u dhisaan guryo heerkoodu sareeyo oo deegaan ahaan loogu talagalay. Sidaas ayay 85% bulshadu ku hanteen guryo iyagu leeyihiin. Shaqo la'aanta waddanka ka jirta waxay hoos ugu dhacday 3%, taasoo ah in dadka waddanka aan shaqayn ay yihiin 3% kaliya. Wax soo saarka guud ee waddanka 1980 waxa uu ahaa 7 bilyan. 2016 waxa uu gaaray 360 bilyan. Dakhliga qofka soo gala sanadkii waxa uu gaaray 1980 $435. 2016 waxa uu noqday $80,000. Lee Kuan waxaa la soo gudboonaaday eedamo la xiriira hab xukunkiisa, kaasoo si toos ah u maamulaya dalka muddo dhan 30 sano oo ka bilaabanaysa 1960 ilaa 1990 uu si iskiisa isaga degay xilka. Waa laga yaabaa inuusan ahayn hogaamiye dimuqraadi ah oo lagu daydo. Waxaa la tilmaamaa in qoyskiisu ay xukunka ku sii jireen, gaar ahaan wiilkiisa oo noqday 2004 ra'iisul wasaaraha waddanka. Laakiin taasoo jirta hadda waxa uu ahaa hogaamiye Singapore hormariyey. Waxa uu ka keenay meel fog. Singapore waxay ahayd waddan sabool ah, wuxuuna gaarsiiyey mid ka mid ah waddamada ugu dhaqaalaha badan adduunka. Dal ay aad ugu badan tahay daaraha dhaadheer. Dal hay'adihiisa ay ka caagan yihiin musuqa. Baasaboorka waddanka waxay isku qabsadeen kaalinta koowaad. Baasaboorka waddanka Jarmal oo ay isla galeen baasaboorada ugu qiimaha badan adduunka. Qiimeyn la sameeyey sanadkii 2017. Wax soo saarka guud ee waddanka waxa uu la mid yahay wax soo saarka guud ee Malaysia, iyadoo la og yahay in baaxadda dhulka ee Malaysia 450 jeer ku labanlaabmo.
ninkan iyo Lee Kuan waxay ku xasuusanayaan dadka reer Singapore oo ay ku naanaysayaan wasiirka macalinka ahaa ama macalinkii sareeyay goortuu dhintay oo ahayd 2015. taariikhda waxa uu gashay dhaxal weyn oo uu kaga tagay dalkiisii. waxa uu ka tagay sumcad wanaagsan iyo dal hodan ah oo lagu tiriyo dowladaha ugu dhaqaalaha badan adduunka. ma laga yaabaa Soomaaliya in ay hesho hogaamiye caynkaas oo kale ah? aragtidaadina la wadaag.